luusiinay ku socotay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan horta koowiga guntada Allahumma ansur man nasara diina Muhammad ilaahu u gargaar cidi diinta nabi Muhammad u gargaarta waxay Soomaalidu tiraada saddex qurux ma leh geedan caleen lahayn gabadhan xishood lahayn geel aan qaalma lahayn waxaan arkayaa walaashayay adigoo mid liita halkan aad sacaaysan isna uu ku caynayo adiguna aad aflagaadeynayso tolow ujeedkaygu ma inaan idin kala hiiliya maya markay gabadhu leedahay afkan biyo kaaga shubaya ama waxa kaaga sameynaya oo wax igu adag aniga inaan afkayga soo mariyo nabigu wuxuu yiri idaa lam tastahi fasna' ma shi'ta idaa lam tastahi fasna' ma shi'ta hadaadan xishoonin waxa alla li waxaad rabto samee eeguna haduu ku qaniino lama qaniino gabadh baa tahay oo muslimad baa tahay oo hooyad noqon karta oo walad baa kula dhashay oo waalid baa ku dhalay u fiirso hada gabadheedii marka tiraado waan ku fuulayaa nin kaale haduu ku dho jawaabo yar baa kugu filan yani adigu iska dhici baad si leedahay caydiisa iska aflagaadeeyo mararka la eegana garbaad leedahay laakiin aflagaadadan xishood la'aantan adiga ku xumeynaysa iska ilaali walaashayay ka joog halka fariintaasan ku diraya halka ka joog gabdhaha Soomaaliyeedo war gabdhahaygiyo annagu waa idinku faanaa oo xishoodkeena ku faanaa oo diinteena ku faanaa oo akhlaaqdeena ku faanaa oo quruxdeena ku faanaa oo dhaqankeena ku faanaa oo hooyooyinkiin baan ku faanaa idinka iska daay aaladan yariyaysan idin baabiinin